bismillaahi raxmaan raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. daawadayaal kusoo dhawaada warka janaalkeena runta wararka. qodobada aad ku daawan doontaana waxaa kamid noqon doona hogaamiyaha jubbaland oo eedeyn xoogan loo jeedinaya laguna eedeynaya inuu boob uu ku hayo kuraasta qeybo kamid ah deegaanada maamulkaasi. wararkii ugu dambeeyay xaalada guud ee doorashooyinka iyo hirshabelle wararka ka jiro ayaan daawadayaal warkeena idinkugu soo gudbin doonaa. haddaba daawade haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar, janaalka wararkeena like iyo share commentiga noogu dadaala. aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya. golaha midowda musharaxiinta ayaa soo saaray qoraal ay kusoo dhaweynayaan golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya go-aankii ay qaateen islamarkaana ay gebi ahaanba ONLF ay kaga saareen in ay kamid tahay kooxaha argagixisada ee dalka ka jira kadib horey markii xukuumadda Xasan Cali Kheyre ay liiskaasi ay ku dartay. midowda musharaxiinta ayaa go-aankani ku tilmaamay mid aad loogu riyaaqay islamarkaana saxay qalalaadka siyaasadeed ee meelka dhac ah iyo sidoo kale qarannimada Soomaaliya. golaha ayaa sidoo kale ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ugu hambalyeeyay islamarkaana sheegay in wax waliba ay loo baahan yahay in waqti kan si cad looga shaqeeyo. midowda musharaxiinta waxay kaloo digniin ay kasoo saareen saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya ee weli ku lug leh arrimaha doorashooyinka, waxaana eedeymo ay u jeediyeen madaxweynaha muddaxileedkiisa dhammaaday maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo in uu faraha u kala baxo xaalada siyaasadeed ee dalka. ugu dambeyntii bayaanka ayaa waxaa lagu soo hadal qaaday xiisada maamul ee ka taagan gobolka Hiiraan, waxaana goluhu ay soo jeedeen in xiisada xal loo helo islamarkaana loo baahan yahay in gebi ahaanba uu xaliyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble. tabashada reer Hiiraan waxaa loo baahan yahay inuu xaliyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa lagu yiri waraaqada ay soo saareen midowda musharaxiinta, waxayna kaloo ay si cad u tilmaameen in tallaabo kastoo la qaadayo u fiicnaan lahayd in laga shaqeeyo horumarka dalka iyo sidii looga hortagi lahaa cid kasta oo dhibaato ku ah dalka. go-aamadan iyo waraaqadahan maalmihii ugu dambeeyay ay soo saareen midowda musharaxiinta ayaa waxay u muuqanayaan kuwa aanan natiijo wanaagsan aanan dhalinin. dhanka kale Somaliland ayaa waxa ay cadeysay haddii dekada Saylac ay ku wareejinayso maamulka Itoobiya. xukuumadda Somaliland ayaa markii ugu horeysay si rasmi ah uga hadashay hadalhayn badan oo ka dhalatay safarkii madaxweynaha maamulkaasi Muuse Biix Cabdi uu ku tagay dalka Itoobiya kaasi oo la xiriirinaya dekada Saylac. wasiirka arrimaha dibadda Somaliland ayaa sheegay in Somaliland iyo Itoobiya aysan ka wada hadlin arrimo la xiriira dekada Saylac oo muddooyinkii dambe la isla dhexmarayay in lagu wareejinayo dowladda Itoobiya, waxaana uu sheegay in Itoobiya ay dooneyso inay xoojiso xiriirka Somaliland ayna ka wada hadleen labada dhinac ganacsiga iyo nabadgelyada iyo dhaqaalaha, isticmaalka dekada Berbera iyo sida ay mar waliba maamulka Itoobiya ay kor ugu qaadi lahaayeen ganacsiga guud ee maamulkaasi. waxaana inta ay ku dareen saraakiishaasi in dowladda Itoobiya ay mar waliba ay diyaar u tahay inay garab istaagto jamhuuriyadda iskeed isku magacaawday ee Somaliland. hase ahaatee maamulka Somaliland madaxweynahooda ayaa maalmihii ugu dambeeyay eedeymo kala duwan loo jeedinayay. si kastaba xukuumadda Itoobiya ayaa xilligan sii xoojinaysa xiriirka ay la leedahay Somaliland oo ku doodaya inay tahay dal madax banaan, iyadoona 4 sano ee lasoo dhaafay saaxiibo isku dhow ahaayeen Abiy Ahmed iyo Farmaajo. haddana lama oga mowqifka kale ee hadda soo bixi karo uu qaadan karo maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo, maadaama Abiy Ahmed iyo Farmaajo ay si weyn isugu dhow yihiin. tanina waxay ka dhigan tahay in culayska Somaliland uu ku sii kordhayo maadaama Somaliland maalmihii ugu dambeeyay ictiraaf si gooni ah ay u raadinaysay. waxaa weli cakiran xaalada doorashada Soomaaliya. xilli doorashada Soomaaliya madaxda maamul goboleedyada dalka qaarkood lagu eedeynayay inay boobkii ugu dambeeyay ee wadaan. hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, hogaamiyaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor, madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani iyo kan Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Laftigareen, Hirshabelle Cali Guudlaawe, dhammaantoodba waxaa la sheegayaa inay hadda boob toos ah ay bilaaween oo ku aadan kuraasta golaha shacabka. walow eedeymahan hadda loo jeedinayo madaxda maamul goboleedyada ay yihiin kuwa aad u culus, haddana waxaa jira culaysyo kale oo dhanka Farmaajo ka imaanaya maadaama kooxda Farmaajo ay si weyn ugu mashquulsan tahay sidii gebi ahaanba loogu takhalusin lahaa cid kasta oo kasoo horjeeda kooxda maxamed cabdulaahi maxamed Farmaajo.
khilaafyada hadda ka jira qeybo kamid ah deegaanada maamul goboleedyada dalka ayaa waxay yihiin kuwo saameyn fara badan bulshada ku yeelanaya iyadoona madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo wado hadda cadaadiskii ugu xooganaa oo ku saaraya odayaasha dhaqanka dega qeybo kamid ah deegaanada maamulka Jubbaland. sidoo kale madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxaa la sheegayaa in doorashada haddaba uu ku bilaabay xero ciidan oo ku taala magaalada Garowe taa oo ay qeyladaan ay ka muujinayaan waxgaradka iyo sidoo kale siyaasiyiinta ka soo jeeda qeybo kamid ah deegaanada maamulka Puntland iyagoona sheegeen in aan marnaba taasi u cuntami doonin xaaladaha adag ee doorashada Soomaaliya haatan ka jira ayaa ka dhigan in maalinba maalinta ka dambeysa culayska uu ku sii kordhayo madaxda sare ee maamul goboleedyada dalka. haddana heshiisyadii hore ee u wada galeen ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble madaxda maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir ayaa hadda u muuqanaya kuwo gebi ahaanba fashilmay maadaama ay u muuqanaysa hadda in wajiyo kale ay la soo baxayaan qaar kamid ah madaxda maamul goboleedyada dalka. doorashada Soomaaliya ayaa maalinba maalinta ka dambeysa waxay u muuqanaysaa in culaysyo aad u xoogan ay ka soo kordhayso xilli hadda laga cabsi qabo in dagaalka caanka hadal ah uu ka bilaawdo qeybo kamid ah deegaanada Hirshabelle ayaa hadda ah meesha ugu adag ee doorashada Soomaaliya waxaana wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in xaaladda doorashadu ay noqon karto mid aad u adag walow madaxda maamulka Hirshabelle ay si cad u sheegeen in go'aan kasta ay qaadanayaan oo ku aadan arrimaha doorashooyinka ay noqon doonaan kuwo lama filaan ah isla markaana tallaabo kasta ay ka dhigan tahay sidii xal waara looga gaari lahaa wax waliba. Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaaw Xuseen ayaa khilaafkii ugu xooganaa haatan ka bilowday khilaafkaasi oo ah mid aad u culus. haddana waxay odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ay ku dadaalayaan sidii madaxweynaha maamulka Hirshabelle oo go'aanka doorashada isagoo u qaadan lahaa hase ahaatee uma muuqanayso in go'aanka doorashada madaxweynaha maamulka Hirshabelle loo deynayo filla Soomaaliya ayaa rajadeeda ugu weyn ay tahay inay gebi ahaanba Cali Guudlaaw Xuseen ay ka takhalusiso doorashada gaar ahaan qeybta gobolka Hiiraan. waxaa wararka hoose aan helnay ay sheegayaan in Jenaraal Xuud iyo sidoo kale Yuusuf Axmed Xagar Dabageed madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle ay noqonayaan kuwa hadda si weyn uga shaqeynaya doorashada ka dhacaysa magaalada Beledweyne inkastoo Cali Guudlaaw uu haddana asna uu doonayo in Tanjoohar ka dhacayso isaga loo madax banaaneeyo isla markaana cid ku farageli karta aysan jirin maadaama beeshiisa halkaasi ay ku xoogan tahay. si la mid ah Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa baqdin xoogan ka qaba inuu tago magaalada Beledweyne maadaama wararkii ugu dambeeyay ka imaanaya magaalada Beledweyne ay sheegayaan in beesha Gaalajacel ay hadda hub aruursigii ugu dambeeyay ee wado kaasi oo ay ku doonaysay inay gebi ahaanba ay ku qaarijiso Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyadoona lagu eedeynayo Fahad Yaasiin gabadhoodii ahayd Ikraan Tahliil Faarax in uu gacantiisa ay ku maqan tahay inkastoo hooyada dhashay Ikraan Tahliil hooyo qaali guhad ay si cad u sheegtay in beesha Gaalajacel marnaba looga baahnayn in ay lagu doorto Fahad Yaasiin qeybo kamid ah gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne. si la mid ah beesha Xawaadle ayaa laga cabsi qabaa in iyana weerar ay ku qaado Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa kursigiisa doorashada waxa uu hadda ku jira qalqal aad u xoogan iyadoona uu ka cabsi qabo in magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan lagu dhibaateeyo taasi oo noqonaysa saameyntii ugu xooganeed ee hadda doorashada Soomaaliya ka dhex bilaabatay. inkastoo odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ee wadaan waawaantii ugu dambeysay ee lagu xalinaya xiisada hadda ka dhex bilaabatay Fahad Yaasiin Gaalajacel iyo sidoo kale Xawaadle inkastoo ay hadda odayaashu qarash fara badan uu Farmaajo u ballan qaado waa haddii ay xaliyaan culayska siyaasadeed ee hadda markale Hirshabelle ka soo cusboonaaday gaar ahaan culayska siyaasadeed ee looga soo horjeeda Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa rajadiisa iyo riyadiisa waxay ahayd inuu guuleysto isla markaana cid kasta oo ka soo horjeeda oo ka takhalusiyo hase ahaatee beesha Gaalajacel Xawaadle oo abti iyo adeer ay u kala yihiin Ikraan Tahliil Faarax ayaa hadda waxay u muuqanayaan kuwo culays gooni ah saari doono taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. guud ahaan daawadayaal warkii waad ka daawanayseen janaalkeena runta wararka saaxiibada aan jecelnahay waana intaa daba daawada haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka wararkeena like iyo share iyo commentiga noogu dadaala waadna mahadsantihiin nabadgelyo.